aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa guddigii ka soo shaqeeyay sharcigan runtii juhdiga ay soo geliyeen farxad gooniyeen ay taa runtii ra'yigay wuxuu yahay inaan ku beeriyo iyo meelaha u arko in wax ka bedel lagu sameeyo marka koobaad mudana guddoomiye mudanayaal waxaan soo jeedinayaa qodobka 72 ee guddigu ay soo jeediyeen ay yiraahdeen wax ka bedel lagu sameeyo aniga waxaan qabaa inaan loo baahnayn wax ka bedel lagu sameeyo saddex sababood oo soo socda sababta koowaad waxay tahay sida ku cad qodobka 9 ee dastuurka gobolka banaadir wuxuu leeyahay maqaam sharciga ayaana xusay kaliya waxaa la sugayay in labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay go'aan ka soo saaraan lagu meel marinayo maqaamka iyo matalaadda uu leeyahay gobolka banaadir marka maadaama sharcigu uu jideeyay sabab hadda lagu laabto la yiraahdo qodobka 72 ayaa la furaya meesha kuma jirto ee sharciga ayaa tilmaamay sharciga ayaana laga sugayaa labada aqal horta inay soo gudbiyaan oo sidaas matalaadda iyo maqaamka uu leeyahay gobolka banaadir uu ku yeesho sababta labaad waxay tahay sida ku cad qodobka 12 faqradiisa 6 ee xeerkii doorashooyinka ee golayaasha baarlamaanku sida wadajirka u ansixiyeen gobolka banaadir wuxuu yeelanayaa tiro ama xubno senatara oo aqalka sare u matalay kaliya waxaa laga sugaya guddigan inay keenaan xeer nidaamyihii lagu qeexay xubnahaas tiradooda intay la ekaanayso isagana sharciga ayaa tilmaamay sabab marka lagu laabto la yiraahdo qodobka 72 la fura ayadana meesha kuma jirtay oo horta sidaas uu sharci ku yahay kaliya waxa laga sugayo waxay ahayd nidaam inaan raacno oo xeer nidaamyihii labada aqal inta baas gareeyaan sidaas lagu gudbo in lagu lifaaqo sharciga doorashooyinka sababta saddexaadna waxay tahay mudana guddoomiye mudanayaal 54 mudane ee aqalka sare qodobka 72 faqrooyinkiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad laguma fariisay tira isla egna ma qaadan dowlad goboleedyadu matalaan isla ku dheeli tirana meeshaas ma jirto sababta marka maanta loo rarayo gobolka banaadir oo loo leeyahay qodobka 72 hal la aad aniga waxaan u arkaa ujeedo wax laga leeyahay inay aqalkii saraba kuma dhisno waa isla qirsana inuusan ku dhisnayn qodobka 72 sabab loo geliyo marka maanta la yiraahdo gobolka banaadir markay timaado arrintiisa iyo matalaadiisa lagu riixo la yiraahdo gobolka banaadir waa in loo furo qodobka 72 waxaan aragnaa ujeedada laga leeyahay inay tahay wada dheer oo raba in la soo marsiiyo si gobolkan uu matalaad u helo waxaan codsanayaa marka saddex sababood oo soo sheegay inaan loo baahnayn sabab loo aado qodobka 72 dastuurka qodobkiisa 9 iyo qodobka 12 faqradiisa 6 ee sharciga doorashooyinka ayada in lagu beesgareeyo qaraarka iyo sharciga iyo xeer nidaamyaha baarlamaanka ka soo baxay intaas kadib qodobkayga labaad ee dood waxay ku beesgaraysantaa mudana guddoomiye mudanayaal gobolka banaadir 7 xubnood inuu qaato waa xaqdar oo maanta loo soo qoro ka badan ayuu leeyahay 3 milyan oo qof ayaa ku nool gobolka dowlad goboleedyadan oo la isku daray ayuu ka dad badan yahay dadka meeshaan ku nool tan labaadna waxay tahay Soomaaliya waxaa leeyahay 12 milyan iyo barwa 54 mudane markii la qaybiyo 3 milyan ee gobolka banaadir ku nool waxaa ku soo aadaya 13 mudane oo aqalka sare ay ku yeeshaan matalaadiisu marka waxay tahay shacabka Soomaaliyeed ee leeyahay aqalka sare uu matalaya 13 mudane in gobolka banaadir uu ku yeesho waayo ayadoo tiradaas la aaday waxaa kaloo ayada ruuxeeda meesha ku jirta gobolkan banaadir sanadkii la soo dhaafay 2019 miisaaniyadda dowladda federaalka ka soo gashay 70% ay miisaaniyaddeeda marka la xisaabiyo 230 milyan ayaa canshuur ahaan looga qaado gobolkan banaadir dowlad goboleedyada kala qarashka la siiya xataa ku jira lacagta laga qaado gobolka banaadir mudnaan gooni ayuu ku leeyahay maadaama qarankii Soomaaliyeed miisaaniyaddiisii 70% uu kabayo in maanta loo hareemiyo oo loo barigooyo ayuu naga midayaa gobolka banaadir oo shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan matalaad ay ku leeyihiin golayaasha dowladda ay ka helaan qodobka saddexaad wuxuu yahay oo talahaan aan soo jeedinayo guddigan aanan ku arag sida qodobka 72 ku qoran senatarada aqalka sare waxaa doorta
shacabka dowlad goboleedyada gobolka banaadir cidda dooranayd waa laga soo tegay talahaan waxaan kusoo jeedinayaa in lagu xuso sida qodobka 72 ku qoran in si toos oo qarsoodi oo madax bannaan sida dowlad goboleedyada kaleba loo sheegayo tirada mudanayaasha ka imaanayda gobolka banaadir xaq loo siiyo gobolka banaadir inay soo doortaan ayagu codkooda ay ku doortaan si ay u noqdaan dad matalaya gobolka banaadir mudana guddoomiye mudanayaal 3 milyan ee gobolkan banaadir ku nool maanta waxay naga sugayaan hiil iyo garab istaag qarankii Soomaaliyeed ay soo garab istaageen difaaceen qarashkoodii ku bixinayaan 3 milyan maanta hiil ayay naga sugaysaa waxaan codsanaynaa gobolka banaadir maanta in loo hiiliyo hiilan qarsoonay